أرضي بانهايو أرضي بانهايو وبحي ودن كان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقاعي عبد الرحيم إبراهيم كسو دو channelka ويل English كاسود كبرن دونتو عشرة كسابسان لغة إنجليشكا كاس أو ست حنا وقصعن دونو عشرة كسابسان لغة إنجليشكا. هذا بينتين جودجلين برشة اللغة إنجليشكا وحن سليك دونا هبكو كفض أتكبرن كرتو لغة إنجليشكا. The easiest way to learn English. halkan waxayna ugu qoran 7 qodob oo aad ku baran karto luqadda Ingiriiska. 7 qodob ma aha 7 qodob oo aan maskaxdayda ka soo qoray, laakiin waa 7 qodob oo standard ah oo macallimiin professor ah oo native speakers ay ka sameeyeen habka ugu fudud ee aad ku baran karto luqadda Ingiriiska. qodobka koowaad waxa uu leeyahay decision go'aan. وإن leedahay markaad baranayso luqad. Decision go'aanku is an emotion waa dareen from the heart, dareenkaas oo ka imanaya qalbiga ama wadnaha. Also sidoo kale it's the first step waa tallaabada ugu horeysa go'aanku for every week shaqo kasta. Make a firm decision, sameyso go'aan adag. markaad baranayso luqadda Ingiriisiga waa inaad leedahay al-azima go'aan adag. haddii aad doonayso inaad barato luqadda Ingiriiska sameyso go'aan adag. waad baran kartaa luqadda Ingiriiska. go'aankaaga adag ha noqdo mid aan isbedel lahayn oo luqadda Ingiriiska ku baranayso. halkan su'aal baa inoo taala, which of the following best describes you? kuwan soo socda teebaa si fiican kuu qeexaysa adiga. su'aashan badanaa macallimiinta ayaa weydiisa ardayda. sababta ka dambeysa aad luqadda Ingiriiska u baranaysaa waa maxay? I learn English. Ingiriiska waxaan u baranayaa. boqolkiiba 9% waxay yiraahdaan to pass exam, si aan imtixaanka ugu baasno ama aan ugu gudubno ayaan u baranaa. boqolkiiba 30% waxay yiraahdaan to get job, si aan ku helno shaqo. boqolkiiba 70% waxay yiraahdaan for enjoyment, si aan ugu raaxaysano. waana qodobka ugu muhiimsan ee aad ku baranayso luqadda Ingiriiska. ardayow waa digniin, ha u baranin luqadda Ingiriiska inaad ku baasto imtixaanka. haddii aad u barato qaliil in yar baad ka baranaysaa, wax yar oo kooban, a little bit. ha u baranin Ingiriisiga inaad shaqo ku hesho, muhiim maaha taasi, laakiin waxaa muhiima sida u jeedo percentage-ka ugu badan for enjoyment, inaad luqadan ku raaxaysanayso, aad jeceshahay wixii ay ku xiiso gelinayaan luqadda taa u baro. qodobka labaad ee ah habka ugu fudud aad ku baran karto luqadda Ingiriiska waxa weeyaan listen, dhageyso. listen, dhageyso wax as a child, sida ilmaha yar oo kale wax dhageyso. because maxaa yeelay when the baby, marka ilmaha yari learn the language uu baranayo luqadda, first marka hore the baby listen, ilmaha yar wuxuu dhageystaa to you deeply, adiga ku dhageystaa si qoto dheer, and get wuxuu helaa more information, macluumaad ama warbixinaad badan ayuu helaa. qodobka saddexaad waxa uu leeyahay speaking and communication, waa inaad sameyso hadal iyo xiriir. waa habka ugu fudud aad ku baran karto luqadda Ingiriiska. qodobkani wuxuu xiriir la leeyahay qodobkii labaad ee ahaa listen, dhageysiga. the second thing, shayga labaad, that the child, ilmaha yari do uu qabto is to copy, waa inuu copy gareeyo that the child heard from parents, waxa uu ilmaha yari ka maqlay waalidkii, like sida mama or baba, sida hooyo ama aabo kale. ilmaha yar waxbuu dhageysanayaa marka hore, kelmadaha hadaladiisa kusoo dhacdhacaya dhagihiisa, kadib markaasuu speaking sameynaya ama communication oo la xiriiraya waalidkii. qodobka afraad waxa uu leeyahay stop studying grammar, jooji barashada naxwaha.
totally kuma lihi jooji grammarka laakiin inaad aad u sii badato oo aad ugu sii badato ama aad ugu sii dheeraato grammarka barashadiisa wuxuu kaa joojinayaa speaking inaad luqadii ku hadasho markaa ku xeel dheeraanin weeyaan qodobkaygu. In fact xaqiiqdii these grammar rules sharciyadani are stopping you adiga waxay kaa joojinayaan from speaking hadalkii because maxaa yeelay you are thinking too much waxaad in badan ka fikiraysaa about which word to say kelmadee baad tidhaahdaa or which word is correct ama kelmadee baa sax ah. How did you learn sidee baad kusoo baratay to speak your language inaad luqadaada ku hadasho as a child markaad ahayd ilmaha yar luqadaada sidee baad kusoo baratay. Were you studying grammar rules ma waxaad soo baratay sharciyada naxwaha markaad Soomaaliga baranaysay naxwaha miyaa lagu soo baray Soomaaliga waa maya jawaabtu marka waxa lagu leeyahay stop studying grammar jooji barashada naxwaha. qodobka shanaad waxa uu leeyahay studying phrases barashada kelmadaha items hadalada sarbeebta and slangs iyo kelmadaha ama hadalada afsuuqa. Phrases are groups of verbs waa koox ficilo ah that adding ficiladaasoo lagu daro prepositions meelayaal. Items are groups of words waa koox kelmada ah that is changed taasoo laga bedelay the original meaning micnahoogii hore. For example tusaale break a leg jabi lugta ayay noqonaysaa original meaning micnahoogii hore laakiin waa items waa kelmad sarbeeb ah waa good luck nasiib wanaagsan. tusaale kale under the weather cimilada hoosteeda ayay noqonaysaa original meaningkeedii laakiin ma aha waa hadal sarbeebe waxa weeyaan sick xanuun. tusaale haddaad tiraahdo today maanta I am under the weather maanta cimiladan ku hoos jira maahee waxa weeyaan maanta waan xanuunsanayaa. sidoo kale slangs baro hadalada afsuuqa ah are informal language waa luqad aan rasmi ahayn that is usually spoken taasoo ay badanaa ku hadlaan especially by particular groups of people gaar ahaan kooxdada ayaa ku hadla. qodobka lixaad waxa uu leeyahay do not afraid mistake qalad ha ka cabsanin. Do not afraid mistakes qaladaad ha ka cabsanin. Just try your ability isku day your ability intii awoodaada karaankaaga isku day to keep going inaad hore ugu socoto. An English word says kelmad ingiriiseed ama oraah ingiriiseed ba waxayna odhanaysaa the more you make mistakes qaladaad badan oo aad samaysaa are the more you learn waa wax badan oo aad barato waa muhiim. soo markaa ardayow ha cabsanin ama qalad ha ka cabsanin haddii aad qalad ka cabsato sideed guul u gaari kartaa haw macquul maaha. qodobka toddobaad waxa uu leeyahay ee u dambeeya confidence waa inaad leedahay kalsooni waa inaad leedahay. stop shyness jooji khajilaada labada kelmadood ee micnahoodu yahay xishood iyo khajilaad way kala duwan yihiin macna ahaan Soomaali si qoto dheer. khajilaad waxaa la yiraahdaa inaad dadka qancin kar weydo ama dadka soo hor istaagi kar weydo khajilaad baa la yiraahdaa laakiin xishoodku waxa weeye inaad ka xishooto waxyaabaha aad ka xunxun ee indhow ka yaqisoonayaan. okay stop shyness jooji khajilaada. stop worrying jooji inaad ka warwarto errors qaladaad. believe aamin what you are talking is correct waxaad ku hadlaysaa inay sax yihiin aamin. halkaa waxay noogu eeg 7 qodob oo standard ah oo waa habka lagu baran karayo luqadda Englishka. intaynu bilaabin casharada luqadda Englishka ku saabsan waxaan idin bayaaminayay oo idin sheegay habka ugu fudud aad ku baran karto luqadda Englishka. 7 qodob oo adiga haysaan
halkaas waxaynu wixii doona casharada imtixaanaha ahaa ee ku saabsanaa luqadda Englishka. Please subscribe the channel, subscribe noo saar, gambaleelka ama jalaska ku dhufo si aad ula socoto duruusta imtixaanaha ee barashada luqadda Englishka. waa anigoo magacaygu yahay Cabdiraxiin Ibraahim. kusoo dhawow markastaba. Please channelka subscribe noo saar, gambaleelka ku dhufo si aad ula socoto casharada imtixaanaha. wixii su'aal ah, wixii fariin tusaale ah waxaad inoo dhigi kartaa commentiga. Thank you very much.